السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذن سلام أخيات شرفت له حلقستو إذن tahay wacan wanaagsan waa mar kale muuqaal cusub oo aniga waa Maxamuud Aadan maanta muuqaalkeena waxaan u hadli doonaa aqoon badan u yeela cudurrada lagu kala qaado STDI ama Sexual Transmission Diseases casharkaas oo faahfaahsan ayaan ka hadli doonaa fadlan hadda channelka marka kuweys ay tahay subscribe noo saar muuqaalkana like noo saar la socod wanaagsan cudurrada lagu gudbiyo galmada waxaa loo yaqaanaa Sexual Transmission Diseases waana cudurro ku faafa galmada loo galmoodo qof qaba cudur faafi kara galmadaasi oo la xiriiri karta afka dabada xubinta taranka rag iyo dumarba cudurrada STD waa cudurro halis ah oo u baahan daaweyn inkastoo cudurrada qaar ay halis yihiin oo aan la daweyn karin sida HIV/AIDS-ka waxaa muhiim ah inaad ogaatid ood la socotid sida aad uga badbaadi kartid naftaada cudurrada halista ah cudurrada halista ah naftaada aad ka badbaadin kartid waxaa ka mid ah sida soo socota cudurka loo yaqaano HIV/AIDS-ka lambar 2 cudurka loo yaqaano syphilis ama sphilito Soomaaliya u taqaano sidoo kale cudurka 3aad gonorrhea loo yaqaano jabtada cudurka kale waxaa waaye cuncunka xubinta taranka sidoo kale finanka ka soo baxa xubinta taranka HB loo yaqaano sidoo kale cudurka loo yaqaano walaabowga iyo cudurro kale halkaan aan kusoo koobi karin ayaa jira cudurrada STD loo yaqaano astaamaha cudurrada lagu gudbiyo galmada mararka qaar waxaa laga yaabaa inaysan qofka ka soo bixin wax calaamad ah haddii ay ka soo baxaan waxaa ka mid ah finan ama nabro yar oo ka soo baxayo agagaarka afka dabada ama xubinta taranka galmada rag iyo dumarba sidoo kale waxaa ka mid ah barar agagaarka xubnaha galmada ee rag iyo dumarba calaamada kale waxaa ka mid ah maqaar cuncun calaamada kale xanuun xilliga kaadida uu dareemayo qofka miisaanka jirka oo lumo ama saxarada oo jilicsanaato dhidid xilliga habeenkii sidoo kale xanuun qandho oo ama qalqalyo leh calaamadahaas waa lagu garan karaa qofka markuu cudurrada STD ay ku dhacayaan weli waxaa sii socda calaamadaha dhacaan ka soo baxayo xubnaha galmada ee rag iyo dumar kan ka soo baxayo xubinta galmada ee dumarka wuxuu leeyahay ur sidoo kale dhiig ka yimaado xubinta galmada ee dumarka xilliga aan caadada ahayn sidoo kale xanuun imaanayo xilliga galmada calaamada kale agagaarka xubnaha galmada ee rag iyo dumar oo si daran u cuncunayo ama itching sameynayo haddaba sideen u ogaadaa inaan qabo cudurka STD ama cudurrada STD lagu qaado sideen ku ogaan karaa inaan qabo waxaa laga maarmaan ah inaad la hadasho dhakhtarkaaga kadib wuxuu sameyn doonaa baaritaano caafimaad oo sheegi karo cudurka aad qabtid haddii ay jiraan cudurro STD ay qabtid dhakhtarkaaga wuxuu ku sameyn doonaa ama ku qori doonaa daawooyin daawooyinkaasi waxay ka daaweyn karaan inay daaweyso cudurro badan oo ka mid ah STD-ga inay khafiifiso calaamadaha cudurrada STD-ga sidoo kale daawooyinkaas isku qorayo dhakhtarkaaga waxay daaweyn karaan inay yareyso inaad sii faafisid cudurka aad qabtid markaasito si bulshada kale ay kuwa nabad qabo u noqdaan sidee loo daaweeyaa cudurrada lagu kala qaado galmada cudurrada STD inta badan waxaa lagu daaweeyaa qalajiyaal haddii dhakhtarka uu ku qoro wax antibiyootig ah si loo daaweeyo cudurka STD waxaa muhiim ah inaad qaadato daawooyinka oo aad dhammayso xataa haddii cudurka calaamadihiisa ay joogsadeen sidoo kale weligaa ha isticmaalin daawo loo qoray in lagu daaweeyo cudur qof kale uu qabo
sababtoo ah haddii aad qaadatid waxay adkaanaysaa in la ogaado cudurkaaga kadibna la daweeyo. Sideen uga hortagi karaa cudurrada STD-ga intaysan igu dhicin? Sida kaliya ee looga hortagi karo waa in aadan u galmoon qofna. Waa in aad adiga iyo xaaskaaga iska baartaan cudurrada STD-ga inta aadan isguursan ka hor oo aysan dhicin wax galmo ah. Iska baar cudurrada qaar ee STD-ga xitaa haddii aadan horey ugu dhicin wax galmo ah, sababtoo ah cudurrada qaar waxaa lagu kala qaadi karaa siyaabo kale oo aan ahayn galmada. Talo: waa inaad ka fogaataa wax kasta oo sababi kara in aad ku dhacdid galmo xaaraan ah. Muuqaalkan halkaas ayuu idin ogyahay. Fadlan hadaa channelka ku cusub tahay subscribe noo saar, muuqaalka like noo saar. Waxaynu baranay video xigo. Wassalaamu calaykum.